kasoo wareegtay aasaaskii warbaahinta Qorraxay Media aad iyo aad baad mahadsantihiin sida wanaagsan ee aad uga soo qayb gasheen inta kadib waxaan meesha ka soo jeedin doonaa bayaan ama baaq saxaafadeed oo ka soo baxay ama ay soo saareen urur lagu magacaabo ururka suxufiyiinta Qorraxay Media oo afka qalaad lagu yiraahdo Qorraxay Journal hordhac yar hadii aan ku horeeyo warbaahin walba oo adduunka ka dhisan waxay leedahay meel ay tooganayso iyo ujeedo waxaana khasab ku ah mar walba inay dhowrto shuruucda iyo xeerarka caalamiga haddaba warbaahinta Qorraxay Media waxay ka mid tahay kuwa mar walba aan ku xadgudbin nidaamka guud ee u yaala saxaafadda adduunka warbaahintan oo muddo 15 sano hawada ku jirtay waa mid madax bannaan oo aan ku hadlin af urur ama af dawladeed waxaana loo aasaasay kadib markii ay muuqatay baahida saxaafadeed iyo sida aysan dhibaatada baahsan ee ogaadeenaya ka jirta caalamku aysan ula soconin xukuumadda Itoobiya ay uga mamnuucday guud ahaan saxaafadda oo qofkii loo maleeyay in uu yahay aqoon-yahan ama saxafi uu yahay xabsi lagu tuurayo kuwa badanna ay ka carareen wadanka ogaadeenaya warbaahinta Qorraxay Media waxay soo martay marxalado kala duwan waxayna hadda u dhisan tahay website radio web tv iyo urur mideeya dhammaan suxufiyiinta Qorraxay Media kaasi oo la aasaasay sanadkii 2012 waxayna dhammaantood hoos yimaadaan Qorraxay Media oo leh maamul iyo agaasimayaal ku kala baasan qaaradaha adduunka warbaahinta Qorraxay Media waxay leedahay yool iyo ujeedo fog oo ay higsanaysa waxayna mar walba dhowrtaa nidaamka iyo hannaanka saxaafadeed ee saxaafaddu ku shaqeyso waxayna mar walba tixgelisaa xurriyadda qofka ama xurriyatul qowlka ujeedada Qorraxay Media waxay ka mid tahay in ay ka hortagto duudsiga xaqiirada iyo saxaafad la'aanta ogaadeenaya ka jirta sidoo kalena in loo soo bandhigo dhacdooyinka joogtada ee Itoobiya ku haysa bulshada ogaadeenaya oo aan lagaba warhaynin wax saxaafadana aan loo ogolayn inay gasho waxay Itoobiya muddooyinkii dambe heshiis la saxiixatay qaar ka mid ah saxaafadda Soomaaliyeed oo ay kula heshiisay in ay soo bandhigaan dhammaan qorshayaasha gumaysi waxayna Itoobiya culays saartay saxaafadda Soomaalida qaarkeed oo ay u aragtay in ay propagandadeeda ku baahsan karto warbaahinta Soomaalida qaarkeed oo cadawga ummadda Soomaaliyeed
si weyn ugu heeliya waxaanan u aragnaa arrintaasi nasiib darro weyn oo u soo hoyatay ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan bahda saxaafadda waxaa wax laga xumaadaa in saxaafadda Soomaaliyeed ay Itoobiya ka dhigata dhufaysay indhaha caalamka kaga gabato oo ay dalka iyo dadka gumaysigu la haray adduunka ugu sheegto barwaaqo iyo horumar ayaa ka jira iyadoo laga tabinayo saxaafad caalami ah haddii horumarka Itoobiya sheeganayso uu jiro maxay Itoobiya uga horjoogtaa saxaafadda caalamka wadanka Ogaadeniya waa su'aal isweydiin mudan ka qorraxay media ahaan ayaanu Ogaadeniya aad diyaar ugu nahay in aanu soo bandhigno hadba xaqiiqada ka jirta haddaba mudanayaal iyo marwooyin haddii aan intaasi kaga gudubno hordhici yarka ahaa waxaan u gudbaynaa bayaan ka soo baxay ururka suxufiyiinta qorraxay media waxaan warbaahinta caalamka iyo midda Soomaaliyeedba ugu baaqaynaa in ay ka qayb qaataan sidii caqabadaha saxaafadeed looga qaadi lahaa Ogaadeniya hay'adaha xuquuqul insaanka waxaanu ugu baaqaynaa in ay si dhaba ula socdaan kana hadlaan xadgudubyada joogtada ee Itoobiya ka wada dhulka Ogaadeniya gaar ahaan dadka u xidhan warbaahinta ayay la shaqeeyaan oo qaar ka mid ah ilaa iyo hadda ay hagardaamo la irdaran yihiin meel ay ku sugan yihiinna qaarkood aan la ogeyn uguna dambeysay heladoodii in habeen madow laga kaxaystay warbaahinta Soomaaliyeed waxaanu ugu baaqaynaa inaysan ka gaabinin oo ay si dhaba u tabiyaan waxyaabaha joogtada ah ee ka socda Ogaadeniya iskuna dayaan inay arrintaasi ka qaataan kaalin firfircoon sidoo kalena ay joojiyaan propagandada siyaasadaysan ee mar walba garab siinaysa xukuumadda gumaysiga Itoobiya marnabana kama ogolaanayno in saxaafad xorihi ay u adeegto gumaysiga Itoobiya aad ayaan u cambaaraynaynaa arrintaasi waxaan dhammaan saxaafadda caalamka ugu baaqaynaa in Itoobiya lagu cadaadiyo in ay Ogaadeniya saxaafadda u ogolaato xaqiiqada dhabta ah ee ka jirta si ay uga soo waramaan hay'adaha xuquuqul insaanka u dooda waxaanu mar kale u soo jeedinaynaa in ay wax ka qabtaan oo Itoobiya culays lagu saaro in ay joojiso cabburinta saxaafadeed ee gudaha Itoobiya ka jirta laguna cadaadiyo in ay sii dayso dadka dulmiga ku xidhan oo ay ka mid yihiin kuwa wariyanimada ku eedaysan waxaana si aad ugu bogaadinaynaa saxaafadda caalamku in ay galaan kuna dhiiradaan gudaha Ogaadeniya soona tabiyaan cadaadiska iyo dhibka ay xukuumadda gumaysiga Itoobiya ku hayso shacabka dulman ee Soomaalida Ogaadeniya dalada suxufiyiinta qorraxay media waxay cambaaraynaysaa xukuumadda gumaysiga Itoobiya oo cabburin saxaafadeed xarig iyo dil aan abayeel lahayn ku haysa wariyaasha sida dhumashada ku gala gudaha Ogaadeniya si xaqiiqada dhabta ah ee Ogaadeniya ka jirta ay u soo bandhigaan dalada suxufiyiinta qorraxay media waxay dhaliil u soo jeedinaysaa guud ahaan saxaafadda iska dhagatiraysa xaqiiqada dhabta ah ee Ogaadeniya ka jirta duudsiyayana xaqa shacabka Ogaadeniya soona bandhiga wararka xaqiiqada ka fog ee uu qorsheeyay cadawga gumaysiga Itoobiya kaas oo ah cadow guuna oo ummadda Soomaaliyeed guud ahaanteed u ah cadow dalada suxufiyiinta qorraxay media waxay si kulul u cambaaraynayaan cid kasta oo si xun wax u sheegta mar walbana daboolka saarta xaqiiqada dhabta ah ee Ogaadeniya ka jirta ama magac saxaafadeed ha adeegsato ama magac kale ha watee waxaanu ka soo horjeednaa in la duudsiyo ummadda dhibaataysan laguna xadgudbayo lagana aamuso arrintaasi bogaadin dalada suxufiyiinta qorraxay media waxay bogaadin u soo jeedinayaan ama bogaadin u dirayaan dhammaan warbaahinta Soomaaliyeed ee mar walba aan ka leexanin xaqiiqada kana fogaada laaluushka iyo gunada in ay ku doorsadaan wararka ummadda dhibaataysan ee Soomaalida Ogaadeniya tala soo jeedin dhammaan saxaafadda iyo suxufiyiinta Soomaaliyeed waxaanu u soo jeedinaynaa in ay ka feejignaadaan dambiyada iyo shirqoollada lagu marin habaabinayo xaqiiqada ka jirta Ogaadeniya waxaanu soo jeedinaynaa in wadada saxda ah ee saxaafadeed loo maro wax kasta oo la qabanayo waxaana u aragnaa laaluushka iyo gunadu in ay yihiin wax xaraam ah in aad adigoo xora ku daboosho xaqiiqadii jirta waxaanu soo jeedinaynaa in saxaafadda Soomaaliyeed
ee sida saxda u shaqaysa ay yeelato iskaashi iyo wada shaqayn si loo yareeyo caqabadaha saxaafadeed ee ka jira dhulalka ay Soomaalidu degaan. ugu dambeyntii waxaan bogaadin u soo jeedinaynaa maamulka iyo dhammaan howlwadeennada Qoraxay Media meel ay joogaanba kuwaasi oo markasta u taagan in ay bogaadiyaan in ay soo bandhigaan wararka lagu kalsoon yahay barnaamijyo tayo sare leh dadkuna ay wax badan ka faa'iideystaan. maamulka guud iyo howlwadeennada Qoraxay Media waxaan ku ammaanaynaa dhowrista nidaamka iyo xeerka caalamiga ee u yaala saxaafadda waxaanan leenahay waad u dhabar adeegteen hawshiinii ee halka ka sii wada. waxaa kaloo ugu dambeyntii u mahad celinaya anigoo ku hadlaya afka agaasimaha guud ee warbaahinta Qoraxay Media iyo afka maamulka Bariga Afrika ee Qoraxay Media guud ahaan dadka sida sharafta badan uga soo qayb galay munaasabadan sida wanaagsanna ee habsamida lana u fadhiya aad iyo aad baad u mahadsantihiin rag iyo dumarba. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. uu ka xayndaabay bulshada caalamka inteeda kale waxay ku ammaanad tahay Qoraxay Media in ay tahay meel loogu noqdo wararka xaqaa'iqda ee laga soo tabiyo dhammaan dunida gaar ahaan Ogaadeniya. marka waxay hambalyo soo jeedinaynaa Qoraxay Media oo aan maanta xusayno guuradeedii kasoo wareegtay asaaskeeda December 12-keedii 1999. saxaafaddu waxaad ogtihiin asaaska saxaafaddu qolyahan reer galbeedka ama maaragtay dunida koowaad la yidhaahdo waxay yidhahdaan saxaafaddu waa xor oo waa maaragtay way madax bannaan tahay laakiin taas waxba kama jiro. saxaafad kasta cid bay u heelisaa cidna way ka heelisaa iyadoo oo mar kasta ku dadaalaysa wararka ay soo bandhigaysaa inay noqdaan kuwa maaragtay xaqiiqada u dhow. haddana waxaa garab socda mar kasta in saxaafad kasta ay cid u heelinayso oo ay cid doonayso inay maaragtay ay bandhig ku samayso xaqaa'iqda meesha ka jirta. runtii maanta waxay adduunku marayaa waxa la yiraahdaa gaalada ugu yeedhaan global village oo ah in adduunkii oo dhan tuulo uu noqday meel yar. waxaan xasuustaa 1991 markii Ogaadeniya doorashooyinkii ugu horreeyay aan ka qaban qaabinaynay mayna jirin xilligan oo kale sida ay adduunku maanta yahay. xataa maanaan haysanin hal computer. waxaan isticmaali jirnay oo wargeysyo yaryar baan soo saari jirnay. matalan waxaan joogay Dhagax Buur waxaa ka soo bixi jiray wargeys la yiraahdo Sahan oo aanu markii ugu horeysay ku bilownay ururka dhalinyarada afkiisa ku hadli jiray. waxaa kaloo markii dambe asaasnay wargeys kale oo la odhan jiray Sheekiye Shaahid. waxaa qoraa ka ahaa inta badan tafatiro ka ahaa nin la odhan jiray Deeq Yuusuf Kaariye oo cadowga gacantiisa ku maqan geeridiisina lama maqal. 1994 baa ugu dambeysay reerka maaragtay aragtidiisa. waxaan xasuustaa aniga oo habeeno badan ku saamaleeyay jiray duplicate-ka inaan rogno bahal stencil la yiraahdo yaan isticmaali jiray. stencil-ka markaan waraaqaha ku diyaarino warqadda duplicate baa yaa la gelinayaa. marka xoog buu u baahan yahay fara badan iyo energy in la rogo oo 100 nuqul baad rabtaa inaad samayso ama 100 copy maanta oo dhan baad rogaysaa. waxaa laga yaabaa inay 30 minutes kugu qaadato inaad 100 copy soo saarto. maanta adduunku waa maaragtay wax kasta waa digital ama wax kasta wuxuu ku jiraa website buu ku jiraa ama computer buu ku jiraa laakiin xilligaa mayna jirin. marka wargeysyadaas aan xilligaa soo saaraynay waxaan gaarsiinay cadowgu inuu mar kasta maaragtay una soo weeraro oo mar kasta dhacdooyinka ay xilligaa waxay samaynayaan inaan soo bandhigno dadna ay weerar nagu soo qaadaan. maalmihii ugu dambeeyay ee kala guurka ay taangiga keeneen Tigreegu waxaan ku soo sawiray Sheekiye Shaahid. taangi baan ku soo sawiray markaas waxaan nidhi dimuqraadiyadda taangiga lagu hagayo. Deeq Yuusuf Kaariye 7 muuna sii joogin anigana waxaan ahaa dadkii baxay banaanka u baxay. deeqna 7 muuna iga dambeeyay markii la qabtay. marka maanta waxaan leeyahay dhalinyarada
rag iyo maaragtay gabdhaha iyo wiilashaba adduunku maanta waxaa waa meelo yaryar yacni wuxuu ku jiraa wax kasta telefoonkaagu ku jiraa wax walba smartphone-nada ayay wax waliba ku jiraan oo adduunkii oo dhan halkan aad kala soconaysaa marka waxaan leeyahay qadiyadda waa in loogu hiiliyo maaragtay qalabka casriga ama teknolojiyadda in looga faa'iideeyo baraha muxuu ahaa baraha bulshada hadda يعني waa si sahal ayaad ku faafin kartaa oo habeen kasta waxaad gaarsiin kartaa qadiyada malaayiin daafaha adduunka jooga marka waxaan aad iyo aad idinku boorinayaa maadaama ood fursad hesheen anagu aanan xilliga haysanin oo ay ka saalan tahay xilligan sida ay adduunku noqday in muxuu ahaa aad uga faa'iideysaan qadiyada ugu heelisaan maaragtay miidiyaha cusub iyo teknolojiyadda casriga ah aad hadda gacanta ku haysaan waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa kasoo qaybgalayaasha muxuu ahaa kasoo qaybgalay xafladda waxaan mar labaad idinku boorinayaa in yani aad soo dhawaataan oo yani qofku waa inuuna isdhihin waxba ma tari kartid qof kasta oo bini aadan oo adduunka jooga waxbuu tari karaa qof aan wax ku oolahayn ma jiro because ilaahay muuna khalqeen ruuxa hadduuna wax ku oolahayn bini aadanku yani waa aaladda waa waxa ilaahay subxaana watacaala ugu talagalay adduunkan inay socodsiiyaan wax kastoo adduunka aad ku arkaysaan maanta qof bini aadana hindisay nin baa wuxuu miisaamayey maskaxda bini aadanka marka qalabkan casriga ee hadda la gaadhay ama teknolojiyadda iyo kombyuutarada loogu cabiro wuxuu yidhi guri laga dhisay intaas oo kilomitir oo intaas oo qol loo sameeyey oo qol walba intaas oo aaladood oo casri lagu diyaariyey waxaa ka yani ka mug weyn 1 second maskaxda bini aadanku waxa ay fikirtay 1 daqiiqo intaas oo dhan ma keeni karaan because waxaan oo dhan aad arkaysaan bini aadan baa soo saaray marka waa inaad u faa'iideysaan qadiyadda waa inaad u faa'iideysaan dhaqanka waa inaad u faa'iideysaan maaragtay islaamka oo aad u helisaan qadiyadda insha allahu tacaala dhalinyarada waxaan kusoo dhaweynayaa aan ku gubaabinayaa inaad fadhiga ka kacdaan baraha twitterka oo kale waxyaalaha waaweyn ee qadaayaadka lagaga hadlaa marka waa in insha allahu tacaala aad meelaha gashaan si fiican aad ugu darsataan haddii ilaahay ogaadeen yaa xurud gubaysiga iyo jaajuusku ha dhaceen habaan masuulantu ha qaato idinla guulaysta السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله ليال آديات باري سلامي سنة جورة قرر حي ما أنت ودي بالدقي إننا آديات بار وفر أحسن هاي مناسبة ما أنت شنية تبان جورة قرر حي سفي عم بي وقايب قالطي سمقلة هلقا كجبادة ودرق حرين توقادينيا هي شعبي وقادينيا مركز سلام آديات أنا درينا أساسه هذا محمد إبراهيم أقاسمي يا شيدا إيا لما شغاله هذا بعد بانو سلام الله إذن كان هذا بانو سلام الله ساس شركة وقصوا قيب قشين رقي الضمر با إذا بلاهي سند ديد يدو إذا عدوينه يا نور رجينا إنا يوغادين يوحر إنا يسكب باقمان إذا بلاهي وحي اللود دا لوال لقانا adduunka maanta sida aad ogtihiin dagaalkiisa ugu dambeeya wuxuu ku soo ururay saxaafadda weeyaan marka saxaafadda si weyn buu gumaysigu inoogala diriray laakiin aad iyo aad baan dadaal badan inagu gelinay ilaa iyo saxaafadeennu ay maalinba maalinka ka dambaysa ay kor soo socoto waxaan xusuustaa 95kii waqtiga aan duurka ku jiray idaacad yar oo 15 kiiloomitir 25 gaaraysa oo dhabarka la saaraya waxaa keenay naftuura gabadiid baa keenay qorxay iyo nastaruuq iyo intaas aan ku haysanay runaantii kolku dadku dhageysto wax weyn bay noo ahay marka 25 kiiloomitir ama 20 kiiloomitir baa laga dhageysanay dadku marka inta badan inuu ka fogaado muura doonayno raadi hayar baa lagu la dhex wareegsanay xidhadka nimcadu wanaag ka heesi jirtay heesay qaadaysa maxaa ka mid ahaa
dulligiya gumaysiga kuwii dooni jiray daafida shisheeyaha ka durduuran jiray dad baa siitee dadkayo warraba yacno heesahaasi qaadi jirtay aad baan ugu farxi jiray halgan baan ku jiraa insha allah waana guulaysanaynaa wax badan baa isbedeli doona jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya way 30 jirtay miidiyuhuna maanta waa 15 jirsaday waa la istaba wataa qolo walba shaqadeedaa lagu ogyahay dhallinyaradii rag iyo dumarba maanta waa taaba gasheen sheekh cabdulaahi baxar iyo wixii la mid ahaa waxaa weeyaan dib bay usii baxayaan safka horena waxaa sii gelaya dhallinyarada idam ilaahay waan guulaysanaynaa laakiin sharafta waa loo dhintaa waa loo rafaadaa waa lagu adkaystaa waa lagu samraa adduun hilow ma jiro hididiilada iyo sharaftu waa qaali weeye xagga ilaahayna sharafta iyo karaamada ka qoran inuu qofku yacni caajisla u yahay waxba ma qabanay siduu yidhaa waxba ma ay tarayso waan guulaysanaynaa insha allah wax badan baa inoo soo socda khayr badan baan rajaynaynaa inaynu halgankeenna dhan saxaafadeed يعني هذا واحد بدن بعد ما صعدوا 24 بعد ما أرديو وحبات ما أرديو ترى هذا حاول يقول شرية تمد جوردي يقر هاي عياري تفطور مع هذا زمان قرادي عبد الحكيم سنة جورا وحان صوّد على اللبقة من كريم بي مركب وحو صوّد وايش كواديري هدوك هذا اللي سمعت شو تيجي يقولون ولا مرة واحد كنتو يا إن شاء الله إنه قريسا إذا كيلاي وأقول سنة إلا المرة والبلد حفلتين لقوانينا وعينا الرق يضمر تاليدو لما وعينا سكون بعضه وحان كسو جبين إياه قرمت بي كتيران فرع أما بري أفريقيا اللي كتيران أيانو ويتنا سفي عوا كان سجود عيني سنيتهم بي بشر مرسا وحي باقع يا وحي فرسوا الله أكبر الله أكبر وقادر يا حرو عدو يدورين في قدعه بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر وقادر يا حرو هاي سراعو هم دودو وميسيقو هدعو وحلو هدعو طبعا لكو هدعو إنكونا بانقوليسينا بسم الله الرحمن الرحيم كل وحالي يابا إن أنا أبسو ديار جروبي أو مقرنة ديار جروبي بس كيرا معلومة إن يروح هدعو وكو سابسن هل كان كيو مقرنة هاي قرر حميد فنكو رسينا قرانيمادو وشرف قفكا قيمة جلسوا قيد بدو إليه إذا قالن كرينو دكوا وقال عليه وحقا كان غفري لو قال يقول نفط لو قديم إياه إن قران العيد على كان قطعينه وحا قال قيمة إيانا قدرين مدن صحافته قاركي وحقصوا قرشين وحلو قريان قرح الميديا هاوشي ما تقبلتيه مناسبة القروح ذلك خاصة كراوة أنت عطان صحافتها كراوة عشان هل كيني يهوشي أهوشي وحين أخرى أيام قوارو ينسو جدنيا waxaan gooranay socod geedi dheer hayaameen gowsaweyna aad iyo garnuugta yaacdiyo godolkiiyo biciidkiyo gidda habarta waa gad angariga weeshado guryaha aan degayniyo halku geeli baaqiyo gacalkii iyo xigaalkii intaan gooni uga baxay anagula tirsanayna ged hoos jeesaday gabi dheer maxaa qord iyo gowti ku ambaday anoo qaba guryaha cid gumaysiga la darilo anigoon gargaar helin gabalkiina i dhacay maxaan geeda dheer iyo burburada fulo gaar aan ahaado ishu meelan gaadhiyo gooyahayga eego gumaysiga wayaalaha iyadoo gableen socod meelaan u sii galay maxaa geesi wiila wadnihiisa galodiyo maxdintiga guuro geerida ku talagalay safka hore u galay oo green of dhacay iyo waxaa ka garab yahay ku qaracay sanankii goobaha dagaalkana rag baa lagu gargaaro intuu gumaca jirkoodii googooyey xabashida aadibinta gaanoo goobaha u soo hadhay maxaa gabaye heesiye geeraara tiriyo goobada dadkaygii gudaha iyo dibaddaba fikir laga garaabiyo gaarsiiyey qaylada gayigaan lahayn dhammaan goboladeenii gacantii laguma dhigin muu guri nacabkii sidii buu gumacdii waxyeelad u geystaa go-aankaan lahayn lama gaadhin guushii gadmadoobaheeniyo cidoonaha gaboobiyo gabdhihii wacnaa iyo hooyo geesyada dhalay
hawshu gabagabadoo gaadhsiinay meelaan turbo ooga fududne gurmadkii iyo dadaalkii iyo lagabin dhaqaalaha geel iyo lo iyo adhi iyo ganyo lacageen nacfi guriga yaal iyo biyahooda garab wado maad nagu gargaartaan gabagabadii weeyi iyo xubageeku dirartii u guntana sidaasay guule ay ku dhalataa u guntana sidaasay guule ay ku dhalataa waan idin salaamayaa salaan kadib qoraxa media way 15 jirsatay iyadoo qoraxa online ah waan bartay anigu waan ugu hambalyeelayaa dadaalo uu gaaraa Soomaalida kuma mahada dadaalo uu gaarana waxaa asal u ah dadaalo uu laasima dad maanta bilowda joojiso waxa uu isma taray dad laakiin meesha ka qabasho baratay aqoonshada ka hayso natiijad ka gaaraysa waxaan haddaan yar dib u noqdo qoraxay media qoraxay online yaanu 2001 bishii August iyo September yaan access u helay waxaan filayaa inuu ahaa xilligu internetku Ethiopia ma soo gaarin ba at sabab uu joogay macnaha markaan jigad dib u soo noqday xilliga iskuul baan ku dhiganay ya internetku waxa laga wareystay waagana BBC da si program xigta uga shaqeyn jirtay internet oo macnaha maanta WhatsApp iyo Viber kan iyo ma aha xal sidii marka qoraxa online oo Soomaali ah iyo ogaadeen online yaa jiray wax walba inuu reer u adeynaya internet kuna waxa laga yaabaa waa la isu urursan jiray maanta waxaan aadaynaa cafe hebel na bixiya marka qoraxa online qayb adag ka soo qaadatay halkan ogaadeenaya gaar ahaan dadka hawlwadeennada gudaha ahaa meesha kaliya ay xogta la loo soo gudbinayo iyagii online wixii labaad ee weheliyana wuxuu ahaa radio xorriyo oo idaacad ahaan loo dhageysto maanta oo macnaha telefoonada lagu dhageysanayo marka Yurub iyo Mareykanka la joogo qof walbana mobilkiisa uu kaga jiro waxaan filayaa dadaalkeedu in la garanayo macnaha wixii ahaa 99 iyo 2001 marka aad aan ugu hambalyeeyaa nafturaha asaasay Maxamed Ibrahim Mursal iyo dhammaan intii kala qayb qaadatay waxaan u hambalyeeyaa mas'uulka maanta soo qaban qaabiyay munaasabadan ee wakiilkooda qoraxa media Cabdirashiid waxaan u hambalyeeyaa mahadnaqayaa dadka ka soo qayb galay waxaan ka mahadnaqayaa martiqaadka iyo fursada leegsi inta haddaan kaga gudbo qoraxa media waxaan rabaa inaan fursad kale uga faa'iideysano Sheekh Cabdullaahi Baxar gurmadkiisii uu ku tarsaday marka hawlo badan bay noo yahay waxaan rabaa inaan idin xusuusiyo ka golaha qaxootiga ogaadeen ahaan xaaladda reer ogaadeen gudaha iyo dibadda waa xaalad macnaha very alarming waxa laga yaabaa macnaha inay noo sameeyeen laakiin dadka maanta adduunka saameynta ku leh wax early warning la yiraahdo macnaha digitaanka hordhaca waddankeena ku baahan tahay gaar ahaan wadamada abaaraha intaan dhicin ka hor baa laga sii hadlaa sanadkii hore roobku kii hore 30% ka yaraa dadkii xoolihii baa ka baaba'ay marka roobka iyaga bisha hebla maadka sugaya haddii uu 20 daba maro waxaa ka dhacaya meeshaas masiiba marka ilaahay masiiba nooma keeno laakiin filaadan baynu nahay nimcada dhulka la haystana waa lagu xamdiyaa waana kayd baa loo aragtaa qofka shaqo joogana waa lagu arkaystaa waana loo daalaa in laga baxo waxaa bisha hadda ku jiray December ah ay tahay bisha ugu dambaysa sanadka Christmas baa la baxaa waddankana joognay waddan macnaha majority ay Christian yihiin ama Western countries ka xilli la weeyaan laga yaabaa waddankeena ama Ethiopia inay Christmas ka looga aqoon crime-ku uu badan yahay wixii bisha December dhamaadkeeda loo gaaro dowladda Ethiopia oo odaheedu wadata oo liib booliiskeedii wadata oo sirdoonkeedii wadata oo itixaadkeedii wadata oo qurnu jidkeedii wadata waxaana fadhidaa gidaarka waa la bedelay safiirkii u joogi jiray Nairobi Shamsuddin Ahmed markii loo fiiray hadda lagu soo bedelay Dina Mufti Shamsuddin nin miskiin oo Soomaali oo sir badan lagu aaminay dib u noqonaya nin baa hadda lagu soo bedelay yiraahdo Dina Mufti hore uu meel badan ku xil ka soo qabtay laakiin korkuu weynaa safiir buu ahaa xagga Sweden haddana afayeen wasaaradda arrimaha dibadda waxa uu weyn uu Kenya la hirgelin doonaa wax la special status agreement oo sanadkii 2012 kala saxiixdeen
ما معناها إن دولة كينيا حق ولا ذين شيء لسه حتى إثيوبيا ووضع المدح بنان لكن حقه ما أيلان دونتو إن لا دبعت هذا كرير وذين حرية دا إلى دا يستدفرت قاعد هاي بعد كرير وذين إلى الليل مركا ذكرر وذين وحاف ربا إن لو تلاقوا بديه وذين تعديله فربنا بش نوفمبر إلى ديسمبر لابد عضو أضرب بقى على بديه وذين بش نوفمبر سيدا لشيء قاري أمبلاس وقبح حدا يحمده يلا حبدي dad ilaa 8 qof ah way xasu gaareen 7 qof dhimatay cid la hayd xabadaas wali lama cayimin laakiin waxa lagu yeediyay ciidanka oo la saasay tahay ciidanka oo la ficnaa maadina dadkii magaalada ya 15 qof soo guriyay oo odayaal badan oo leeyahay magti bixiya arintaas oo gumaysi ugu jeedo in dadka ehelkii isku dhacaan iyo qofkii wax gaaraan ama barnaamijkaas ama safka ku jira ama safkan ku jiro in safka lagu jiro laga jawaabay laakiin markii intii qof wax gaaraan inta toba geystay inta badan waa naqaan gumaysi Itoobiya dil isagu filiyo iyo biina isagu u dhigay iyo dib ugu socday haduu rabo jawada hadii bixtaa jawada ay ka timaadday jawada in laga xalan bay tahay laakiin in 15 qof oo qoys inta la soo jeeday iyo 8 qof oo qoys ka dhimatay maqti qoladan hay'ad siiso waa in dadka dib la isugu jawaabay macnaha oo loo cayn 15 qof sida hadda la sheegay 12 qof baa la sii daayay ilaa 4 qof baa xiran oo laba gabdhood oo walaalaha iyo laba oday ay ku jiraan xoolo badan baa la moolodiyay oo la ah sida la sheegay dhul in la wareega la rabaa marka gabdhahaas waxay ku xiran yihiin xeraliyo booliis oo degmada dhagax madow ah waan garanay booliiska iyo falaadkooda marka falkaas waa fal aad u xun haddaan nahay galaha qaxootiga waa cambaareynaa tarmiyada ku xoog badan ee wax lagu cambaareyn waxaa kaloo isna ka dhacay qabdaare bishan December 4 in afar dhalinyaro ah laga qabtay magaalada qabdaare xilli habeen ah oo ciidan boolis ay toos soo taageerayeen kadibna la yiri qarax baad fulineyseen jigdil badan baa loo geystay magaalada aad u dhexmareysay sheegeen ilaha qaarkood ilaa mid walba macnaha baarlays laga dhigo dhalinyaradaas afartii oo sida la sheegay afar kamid magacyadooda Cabdullaahi Maxamed Altaray Abdi Malik Asad ila Xasan Ciidi iyo magac kale afar dhalinyaro weeyaan waxaa la isku dayay macnaha heerka odayaasha xitaa ugu galgalroonaa awoodda ma aha inay liboos la hadlaan laakiin qolihii maamulka ee loo kaalka ahaa waxay tahay arrintani way naga weyn tahay dad badan waxay u aadeynayaan in ciidamada libooliska qabdaar jooga wax laga bedelo kuwa cusub la keenay gaar ahaan marka macnaha carcar cusub oo hadda magaalada dib loogu soo celinayay inay tahay falkaasna sidaas la mid ah baan u cambaarayna qodobka saddexaad ee xigay waa xaaladda Kenya inay waan joognay qaxootiga reer Uganda dhibaato lagu soo geystay 2011 ilaa maanta ah si wanaag labadii bilood u dambeysay oo yarihiin dhibaatooyin qaxootiga loo geysanayo dilalkii kasoo macnaha directive ama amarkii ahaa bishii December 2012 oo imanaysa bil kadib markii heshiiska ay kala saxiixdeen Kenya iyo Ethiopia ay halmaari u yimaadeen Nairobi gobolladii dhacay ilaa bishii January 2013 socday kuwii dib u soo noqday sanadkan bishii March 2020 oo ugu weyn operation ku salaama watch isagii mid la mid ah inuu dhaco waa xilli walba suurtagal ah gaar ahaan markii ay bataan qaraxyada argagixisay ka dhacay waddanka Kenya iyo kolkii ay farabataan in siyaasiyiinta waddanku waa macnaha qaxootigu noqdo xukuumada lagu eedeeyay tacdiidada dhacayada waxaan meesha ma karnaa qaxootigu inay ka feejignaadaan staafkii afar refugee ahaa macnaha isdiiwaangelintiisa ahaa weli waa bandin amarkii marka waxaan u baaqaynaa qaxootiga reer Uganda ee jooga Nairobi inay barnaamijka foomka exceptionalka ee dadka loogu talagalay in refugee noqontada ah inay isku diiwaangeliyaan dadka dhamaantood macnaha inay isdiiwaangeliyaan dadka reer Uganda foom baa jira xubnaasir oo hayo qadri baa haya marka qof kasta oo macnaha haysta alien ama mandate ama waraqaha isdiiwaangelinta ee ballanta ama ha noqoto UNHCR ama sharmooyo waxaan noqonaa xisbiga DRA hadda foomka haysta isdiiwaangeliyaan qof walbana fayl numberkiisa iyo magaciisa ha ku reebo meeshaas si macnaha bishan December hadii ay wax howlgal ay bilowdan taada ah dadku community members noqdaan brutal macnaha aan uga dabatay howlgaladooda waxaan dawladda Kenya ugu baaqayaa fursadan in si kasto Ethiopia u leeyihiin xiriir saaxiibtinimo ma aha in special status agreement oo hadda ku faanay diina mufti inuu hirgelinayo oo khatar degdeg ah weeyaan dawladda Ethiopia iyo Kenya waqti dheer bay xulfa ahayeen gaar ahaan kolkii uu jiray barnaamijkii reditismka ama Soomaaliyeed ee dawladda Soomaaliya ee 1963
إلا أي وقت هذا أنت 91 كيلو قال هذا لابد بقى أرمها الصومالي كم بديسناي نسيونا جلاتين كسروا دم بيسوا حرمة السياسية كينيا كدعي هي الصومالي دي أو صهرت ويهرت من السوري تاليكا أقوم سبتنا حقوق حدود عالمية وقحط كل نقطة نقول كشيء جنيه كل صار بقدرات ضدي أملحن استهلي أي دابي في كم دينتا إن الدولة كينيا تحكي رسالة دتك عصوا أقوم سدان هي حدود يسافرين تجدا إن حدود حقوق حدود النمو أي أبو إلى السوق وطن كان أي مثلين constitution كينيا كحطين مديين مركب كهوز فلا وسلامة وجلبا هي دايركت في دنبال لبا تيت سمر لا كل يلا بيتوانا أما ديرك كيفاش كما أفضوبي كيفاش كما يكدعي لولك كينيا مر لبعدين أنا صار نقول كتر بين الدولة كينيا وهذا يوي حروب وهذا يوي حروب وهذا يوي حروب جبل الكريست صحا فتناقا قبري أقرع ميل صاع قرحي ميديا أقرع ميل صاع قرحي ميديا قولي صحا فتناقا قبري أقرع ميل صاع قرحي ميديا أقرع ميل صاع قرحي ميديا